maadaama oo markii iskuulaadkii la xiray ardaydii iskuulka caadiga dhiganaysay waalidiintu way bixiyaan lacagtii maadaama certificate iyo shahaadiye ay bixinayaan iskuulku bixinayo laakiin macallimiintii quraanka haba yaraatay wax la siiyaa ma jirto damiirku wuxuu ahaa in macallimiinta quraanka intaasoo sano ardaydeena akhlaaqda u dhigaysay in wax la siiyo waalidiintu ay tabartooda sida tan iskuulka u bixinayaan tan inay bixiyaan baahay laakiin tii maadaama adkaatay إذا أسكح صارنا أو العجو ورورنا حكومة هذا أسكح ورورنا يدي كان يدي كورورنا وغيران أنت كوفيد كي يوحنا دمانة يعني معلمين تقرأن كوين إنه نحكاتشون إن كشق إنه يتان أسرعني تانا وحيد في جيسان كرتان يدي كود دبل كذا لا تشانية آخرية الدم ما ده حيد ترسو إن هذا حسكا ورسان haddaba si loogu baraarujiyo ganacsatada iyo ka soo qaybgalayaasha kala duwan ee kulankan halista uu leeyahay caabuqa COVID-19 iyo dhibaatada uu ku hayo dalka iyo deegaankaba ayaa waxa wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida Dr. Mukhtaar Yuusuf oo halkaas uga soo jeediyay tirada uu laayay marka caabuqa COVID-19 ku dhacay ee dalka iyo deegaanka inta u dhimatay iyo inta ka bogsatayba 6 milyan ilaa 7 milyan inta u dhaxaysa ayuu adduunka ku dhacay cudurkan 400 kun baa u dhimatay dalkeena markaan imaadno 13 bishii March ayaa qofkii koowaad laga helay deegaankeena Abriil 26 baa ugu horeysay tirada guud 1984 bay maraysaa wadanka deegaanka 111 bay maraysaa dhimasho waa 20 qof dabeecadaha xanuunkan leeyahay waxaa ka mid ah qandho badan cuno ku xanuuna قفع قللا نقصكو كودغا وعلامتها لو غرانيا waxay isku dhow yihiin hargabka sida daraadeed qofka calaamadaha isku arka waxa haboon inuu goobaha caafimaadka la soo xiriiro ama numberka 65 inaga deegaan ahaan 6 qof ayaa laga helay magaalada yaani deegaanka gudihiisa mid waa Hadagaala inta kalena waa Jigjiga iyagoon socdaan lahayn يعني مالي تجين يا مالي عد أي لكم من الله وحيتها عدين وتاعي إنه حنونك برشدة وسوقار مركا هذا أنا واحد عارف ما ذهنا برشدة قاعد سنينا قفك على مدها إسكوارك إنه هاري ولا صاحبيله أدبل ما زلت dhankiisana wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda Soomaalida Mudane Bashiir Shaafi ayaa u soo jeediyay bayaanka cusub ee ganacsiga ee xaaladda degdega ah ee dalka intaas kadibna golaha sare ee arrimaha islaamka ee deegaanka ayaa u soo jeediyay ganacsatada faa'iidooyinka ay leedahay deeqda ay markaasi siinayaan dadka danyarta ah ee deegaanka ganacsatadii kulankan ka soo qayb gashay ayaa fikirro kala duwan oo markaasi quseeya qaabka ay uga qayb qaadanayaan deeq bixintani halkaasi ka soo jeediyay gabagabadii kulankan ayaa lacag gaaraysa 2.6 milyan oo bir ay halkaasi ku yabaheen qaar ka mid ah ganacsatadii ka soo qayb gashay kulankan halka inta dhiman ee ganacsatadii ka soo qayb gashay kulankanna ay codsadeen in aan markaasi la bayaaminin magacooga shirkadaha ay ka socdaan iyo waliba deeqda ay ku deeqayaan iyagoo codsaday in sababo la xiriira ajirka iyo faa'iidooyinka kala duwan ee markaasi deeqdan ka helayaan darteed loo qariyo